kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal soo dhawaada waxaan idiin soo gudbinaynaa maxaa ka socda magaalada Kismaayo kadib markii halkaasi ay gaareen mas'uuliyiin dalka hore xilal uga soo qabtay haatan laakiin ku midaysan madasha samata bixinta sidoo kale madaxweynaha Puntland kulamo xasaasi ah oo hordhac ah oo caawa ay yeelanayaan madaxda ayaan idiin soo gudbin doonaa daawadayaal sidoo kale Jubbaland oo ka shiftay xiriirka markaasi ka dhaxeeya Axmed Madoobe iyo sidoo kale farmaajo shirkaasi ma ka qayb gali doonaa faahfaahinta ayaan markaasi idinkugu soo gudbin doonaa daawadayaal iyo wax kasta oo ku saabsan xaaladda magaalada Kismaayo oo haatan dhammaan indhaha shacabka Soomaaliyeed ay hayaan waa hagaag halkan waa durdurka wararka muuqaalka laygare sina shargare magaalada Kismaayo waxaa ku sugan oo ku hoyanaya caawa madaxdii ugu faraha badnayd ee mucaarad iyo sidoo kale Saciid Dani oo markaasi ah madaxweynaha Puntland iyo madaxweynaha Jubbaland oo Kismaayo hore ugu sugnaaba waxaa jira kulamo xasaasi ah oo madaxda ay yeelanayaan kulamadaas ayaa waxa markaasi hordhac ay u yihiin shirweynaha la filayo in maalinta berri ah oo khamiisa uu ka furmi doono niska dambe aqalka martida ee magaalada Kismaayo shirkan waa mid xasaasi ah waxaana indhaha si toos ah ugu haya guud ahaan shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka waxaana laga dhursugayaa warka ka soo bixi kara war saxaafadeedka markaasi laga soo saari doono Jubbaland oo shirkan martigelinayso ayaa waxa uu shirkan markaasi u dhaxeeya madasha samata bixinta iyo maamulada Puntland iyo sidoo kale Jubbaland oo la isku dhaho golaha mustaqbalka Soomaaliyeed magaalada Kismaayo waxaa gaaray madax ay ka mid yihiin wasaarihii hore ee Soomaaliya waa 3 wasaare oo dalka soo martay Maxamed Xuseen Rooble Xasan Cali Khayre iyo sidoo kale Saacid dhammaantoodba waxay gaareen magaalada Kismaayo sidoo kale Saciid Dani ayaa lagu soo dhaweeyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa ka mid ah ragga magaalada Kismaayo gaaray haddaba filla Soomaaliya shirweynaha magaalada Kismaayo sidee u aragtaa maxayse tallaabo ah oo ay qaadi doontaa waa su'aalaha isweydiinta mudan filla Soomaaliya waa marka koobaad ee qorshihii ahaa doorasho qof iyo cod wali way wadataa oo kama tanaasulin waxaan markaasi haatan xogta ku haynaa in filla Soomaaliya ay gabi ahaanba ku fashilantay joojinta ama hakinta shirka magaalada Kismaayo kaas oo caqabad weyn ku noqon doono war saxaafadeedka ka soo baxa Xasan Sheekh Maxamuud waxa lagu soo waramayaa in maanta xafiiska uu soo xaadirin oo uu seexday lama oga sababta ka dambeyso in xafiiska uu cagta dhigi waayo ma arrin la xiriirto shirka Kismaayo ma arrimo kale oo isaga u gaar ah lama faahfaahin laakiin waxaa xusid mudan in filla Soomaaliya ay aad iyo aad uga walaacsan tahay shirweynaha magaalada Kismaayo ee ka furmaya maalinta berri oo markaasi khamiisa laakiin waxaa xusid mudan in shirka ka furmaya maalinta berri oo khamiisa magaalada Kismaayo in walaac xooggan ay markaasi kala kulmayso filla Soomaaliya shirweynahaas Saciid Dani oo ka mid ah madaxda magaalada Kismaayo gaartay ayaa waxa uu halkaasi la tagay ciidamo aad u fara badan walow ciidamadaas aan la ogeyn ujeedada uu markaasi ka lahaa ma kalsooni darro ayaa jirta ma qorshe kale iyo dhoolatus ayaa jira ma cadda iyadana laakiin wuxuu halkaasi la tagay ciidamo aad u hubaysan oo wajiga u duuban yahay halka madaxda kale ee tagtay ay si caadi ah u tageen Sheekh Shariif ayaa la filayaa in isna uu ku biiro oo maalinta berri niska hore isna uu tago magaalada Kismaayo isaga iyo wafdi uu hogaaminayo mas'uuliyiin kale oo fara badan ayaa la filayaa in ay shirka Kismaayo ku biiraan oo halkaasi ay tagaan madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale oo madaxweynihii hore ee dalka ayaa la filayaa in isna uu shirka Kismaayo ku biiro Jubbaland way ka hadashay xiriirka Farmaajo iyo sidoo kale Axmed Madoobe kala dhaxeeya wasiirka amniga Jubbaland waxa uu sheegay in uu hubo
in Kismaayo uu tegayo Farmaajo, laakiin waqti cayiman muusan sheegin. Sidoo kale Jubbaland xildhibaan Xidig oo ku sugnaa garoonka Kismaayo xilliga soo dhaweynta ay socotay oo laga soo doortay Jubbaland wuxuu si cad u sheegay in Axmed Madoobe iyo sidoo kale Farmaajo ay wada xiriiraan oo ay wada hadlaan, xiriirkooduna wanaagsan yahay. Inkastoo warar soo baxay goor hore ay sheegayeen in Farmaajo uu ka cudur daartay shirka Kismaayo, haddana waxaa markaasi loo fasiran karaa hadalkan Jubbaland ka soo baxay mid markaasi la doonayo in lagu soo dhaweeyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isla markaana uu si degdeg ah ugu qanco inuu shirkaasi ka qayb galo oo Kismaayo tago. Waana la filayaa in uu ku biiri karo shirka Kismaayo, walow hadda wax dhaqdhaqaaq ah oo ku aadan in Farmaajo uu Kismaayo tegaya aysan jirin, laakiin ama dib ayuu ka tegi doonaa. Balse Jubbaland waxay sheegtay in uu ku raacsan yahay ama uu taageersan yahay waxa ka socda Kismaayo madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Farmaajo muxuu shirkan uga dhuumanayaa ee uu mowqifkiisa u caddeyn waayay waa su'aalaha isweydiinta mudan. Ma wuxuu isleeyahay shirkii kan ka horreeyey ee adiga lagugu mucaaradsanaa ee Xasan Sheekh xitaa uu qaybta ka ahaa Kismaayo lagu qabtay, waxaad u arkaysay caqabad, kan inaad dhex taagnaato ood ka qayb gashana maxay ka dhignaan doontaa? Ma arrimahaas ayuu wax iska weydiiyey, mise arrimo kale oo qarsoon ayaa jira? Waa su'aalo isweydiin markaasi u baahan. Madaxweyne Farmaajo shirkan ma muuqato hadda sabab markaasi uu u diidi karo hadduusan war-saxaafadeed ka soo saarin mowqifkiisa shirkaas. Waxaa muuqato inuu si cad u taageersan yahay, maadaama Jubbaland ay sheegtay in waxa ka socda Kismaayo uu madaxweynihii hore ee dalka Farmaajo uu taageersan yahay oo uu og yahay. Hadduusan iska bariyeelin waxay ka dhigan tahay inuu si cad u taageersan yahay shirka ka socdo magaalada Kismaayo oo uu ayeedsan yahay. Magaalada Kismaayo saacadaha ina soo aadan waxay martigelinaysaa kulamo waaweyn xilli ammaanka magaalada aad loo adkeeyey oo jidadka laga soo galo gabi ahaanba la xiray. Gudaha magaaladana ay ka socdaan baaritaano isdaba joog ah oo ammaanka lagu xaqiijinayo. Guud ahaan xaaladda magaalada Kismaayo ayaa waxaa laga dareemayaa saansaanta kulamada xasaasiga ah ee halkaasi ka socdo, xilli caawba aqalka martida ay ka bilowdeen kulamo markaasi gooni ah oo xasaasi ah. Siciid Dani oo haatan ugu saameyn badan musharaxiinta xilka madaxweyne ee Soomaaliya ee haatan ku sugan magaalada Kismaayo ayaa u muuqday in uu yahay musharax markaasi ay dhab ka tahay ama ay ka go'an tahay in uu mar ku fariisto kursiga ugu sarreeya dalka ee looga arrimiyo. Oo waxaad ka garan kartaa ciidamada uu halkaasi la tegay iyo sidoo kale hamaamuuska markaa lagu soo dhaweeyay. Shirka magaalada Kismaayo ayaa la filayaa in xaaladda siyaasadeed ee dalka uu dhinac u jihayn doono, isla markaana ay ka soo baxaan qodobo wax ku ool ah. Haddaad nala soo gaartay dhammaadka muuqaalkan, fadlan nagu soo biir oo muuqaalkan like garee, siina share garee si dad badan xogteena ay u gaarto.